السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركلة سود واده آدي هذا ومهد سنتهين مانتا وقميس لحية لباتنك بيش الله بيتمناد ديسمبر سنة كاللبادو كون أفري لباتنك مقال كانوا حربائنا ندي كل وداغو نينكي ترامها أو هذا إنه حلك مدحتني مدى إمريكان كولا وداغو أي كهر سنتهاي لباتن أفر مالمود إيش هديان إرادو ayaa waxa uu wada maqli dirteen Soomaalidu tiraado war odagii maxaa ku taqeenin dhalaan dad cunitaan ku tarsaday hadda ninkii Trump aha waalidii waaba ku naqeen laakiin doqonnimo ayuu ku darsaday wadamo madax banaan ayuu u hanjabayaa oo leeyahay dhulkiina ayaan la wareegayaa muxuu kula wareegayaa maxeeradu kula wareegayaa ma diblomaasiyadu kula wareegayaa ma naqaan waan arki doonaa laakiin maalmahan hanjabaadiisu waxay ku wajahnayd Canada hadda uu ku soo daray wadanka Panama oo kanaalka Panama uu doonayo inuu la wareego iyo Greenland arinteeda waa ka sheekayn doonaa horeyna dhowr jeer Canada waan uga hadlay laakiin maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo oo diiradda aan ku saaro kanaalka Panama oo Trump ku hanjabay in uu dib ula wareegayo maadaama horey heshiis dhexmaray labada wadan ee Mareykanka iyo Panama kanaalkaasi gacan ku hayntiisa iyo maamulkiisa lagu wareejiyay wadanka Panama horta kanaalkan muxuu yahay taariikhdiisu maxay tahay yaa dhisay maxaa lacag oo ku baxay goormo Mareykanku wareejiyay waxyaabahaas oo idil ayaan waxaan rabaa inaan idin la wadaago Trump hadalkan waxa uu ka sheegay shir axadii uga qayb galay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona marka waa shirkii ugu horeeyay ee meel fagaaraha uu ka hadlay ilaa iyo markii la doortay marka waxyaabo fara badan uu ka hadlay arinta Elon Musk uu ka hadlay oo la yiri waa madaxweynaha isaga wadanka madaxweynaha wuxuu yiri xitaa ninkaas wadanka maba uusan ku dhalanin ba wadanka madaxweynaha ma noqon karo walow hadda isaga iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin waa Elon Musk iyo Trump marka Panama Canal inta aan hadalkan u galin iyo waxyaabahaasi bal horta taariikhdiisa wax yar Panama Canal muxuu yahay ayaan rabaa inaan idin la wadaago Panama Canal waxaa la dhisay intii u dhaxaysay sanadkii 1904 ilaa iyo 1914 muddo 10 sano ayuu dhismihiisu socday Mareykanka ayaa dhisay laakiin markii hore waxa uga horeeyay Faransiiska oo isku dayay in uu dhiso laakiin ku guul dareystay marka Faransiisku waxa ay isku dayeen ilaa 80meeyadii inay dhisaan 1981 ayaa shirkad Faransiis ay bilowday inay kanaalkaasi dhisto markaas kadib waxay la kulantay caqabado dhinaca dhaqaalaha iyo cudurro shaqaalihii la soo gudboonaaday marka mashruucaasi waxay joojiyeen sanadkii 1989 in ka badan 22,000 oo shaqaalaha ayaa uga dhimatay intii 81 ilaa 89 u dhaxaysay waa muddo 8 sano ah shaqaalahaasi marka waxa ay u dhimanayeen maadaama meesha la dhisay meel biyo ahayd malaria iyo yellow fever ay u la'anayeen shaqaalahaasi marka Faransiisku ay ku guul dareysteen inay dhisaan shirkad Mareykan ah ayaa la wareegtay markii heshiis ay la gashay dawladda Panama sanadkii 1903 markaas waxay bedeleen dhammaanba qalabkii ay wax ku dhisaysay shirkadii Faransiiska ahayd iyagoo sidoo kalena la wareegay dhisitaanka waxay la kulmeen sidoo kale caqabado fara badan iyo khataro fara badan oo ay ka mid tahay isbedelka cimilada maadaama meesha la dhisay meel kanaal ahayd labada badweyne waa Atlantic Ocean iyo Pacific Oceanka kanaalku isku xiraa gadaal ayaan idinka sheegi doonaa sidoo kalena cudurro aysan horey u arkin ayaa shaqaalahooda ay la kulmayeen iyo waliba baaxadda uu la ekaa mashruucaasi oo mashruuc weyn ahaa marka shaqaalihii sidoo kale dhinaca Mareykanku markii shirkadda Mareykanka ay bilowday waxa ay la kulmeen sidoo kale cudurradii shaqaalihii Faransiiska dilay oo 22,000 ka badnaa sida cudurradii malaariyadii yellow feverkii waxa la leeyahay 5,600 oo shaqaale ah ayaa uga geeriyootay sidoo kale shirkaddii Mareykanka ah markii ay dhisaysay ilaa iyo 55,000 oo shaqaale ayaa ka shaqeynaysay mashruuca kanaalkaasi Panama shaqaalahaasi waxa laga kala keenay jasiiradaha ay ka mid yihiin Barbados Martinique iyo Guadeloupe ay inta badan ay ka imaanayeen marka Mareykanka shirkadiisa markii la wareegtay dhismaha kanaalkaasi waxa ay bedeleen dhammaanba qalabkii ay Faransiisku wax ku dhisayeen iyagoo sidoo kalena qalab ka balaaran oo ka waaweyn keenay si mashruucaasi ay u dhameystiraan
marka dowladda Panama waxaa mashruucan markii la dhameeyay kanaalkaasi Panama la furay 1994 bishii Agosto ee 15 in muddo ah labada wadan ee Panama iyo Mareykanka ayaa si wada jir ah kanaalkaasi u maamulayay laakiin heshiis loogu magac daray Torrijos-Carter Treaties ayaa sanadkii 1999 waxaa loogu wareejiyay inay si buuxda wadanka Panama uu kanaalkaasi u maamulo marka taariikhdii kooban kanaalkaasi dhismihiisa iyo marxaladihii kala duwanaa uu soo maray waliba qiimaha ku kacay kanaalkaasi dhismihiisu waa 350 milyan oo dollar waana mashruucii ugu qaalisanaa ee Mareykanku xilligaasi uu sameeyay in lacagtii ku baxday 350 milyan ayaa ku baxday dhismaha kanaalkaasi waa tahay hadda murankan marka maxaa keenay ninka Trump waxa uu leeyahay kanaalka Panama anaga ayaa dhisnay marka hadda maraakiibteena waxaa lagu jaaj gareeyaa ama laga qaadaa lacag aad u fara badan Panama waa inay yareysaa lacagta ay maraakiibteena ka qaadayso haddii kale si dhaqso ah oo su'aali aysan ku jirin waa in gacanta Mareykanka ay dib ugu soo celiyaan heshiiskii marka 1999 markii Mareykanka iyo Panama ay wada galayeen oo si buuxda kanaalka Panama maamulkiisa lagu wareejinayay dalka Panama ma ku jirin qodob ah haddii aan doonayno dib ayaan idinka soo ceshan karnaa kuma jirin marka Trump qaab nuucee ah ayuu doonayaa inuu kanaalkaasi u soo ceshto waxay la mid tahay qof ayaad hadiyad u keentay hadiyadii markaad u keentay kadib waxaad tiri waniyo hadiyadaasi waa qaali qofkan u qalmo inta u tiraado hadiyadeedii ii soo celi marka sidaas oo kale ay hadda u dhigantaa marka kanaalka Panama waa 82 kilomitir oo artificial water biyo la sameeyay waaye marka haddii aad aragtay muuqaal ahaan waxay tahay biyuhu kor ayay u soo kacayaan marka la xiro waa darbiyo waaweyn haddana hoos markabka kor ayay u soo qaadayaan wuu soo dhaafaya marka waa biyo la sameeyay waana sida aragtaan waqti fara badan iyo lacag fara badan ku baxday marka waxa uu isku xiraa badda Atlantika oo badweynta Atlantika iyo waliba Pacific Oceanka ayuu isku xiraa marka Trump hadda wuxuu leeyahay haddii lacagta aysan naga yareynin maraakiibteena ay ka qaadaan dib ayaan la soo wareegaynaa marka qaabka uu doonayo inuu maro ma la sheegi karo hadda sidoo kale toddobaadkan safiir oo uu magacaabay wadanka Panama oo la yiraahdo Kevin Marino Cabrera oo waxa uu yiri isagoo waliba markii qoraalka uu soo qoray sida aragtaan uu yiri wadankaasi oo lacag fara badan maraakiibteena ku jaad gareynaya ayaa ninkan uu magacaabay ninkaasi ayuu safiir u magacaabay marka sida aan sheegay Panama si buuxda maamulka waxay ula wareegtay sanadkii 1999 oo Mareykanka ay kala wareegtay markii in muddo labada wadan ay si wada jir ah u maamulayeen marka waxaa soo mara ilaa iyo 14,000 oo ship amaba markab amaba doomo kala duwan ayaa sanad kasta ka soo gudba kanaalkaasi oo alaabo kala duwan oo xamuul oo nooc kasta ha ahaadaan wada xitaa maraakiib military ayaa marta sidaas darteed marka waxa uu leeyahay si cadaalad ah maraakiibteena ulama dhaqmaan wadanka Panama sida darteed anaga ayaa lahayn markii horeba kanaalka marka hadda dib hana loogu soo celiyo oo gacanteena dib ha loogu soo celiyo arintaas marka waxa ka hadlay madaxweynaha wadanka Panama ninkan waxa la doortay xilka uu la wareegay bishii July 1 ku dhawaad 5 bilood ka hor ee sanadkan hadda sii dhamaanaya magaciisa waxa la yiraahdaa Jose Raul Molino waxa uu yiri in arinta Trump ka soo yeerto wuxuu yiri ma ahan wax loo dul qaadan karo isagoo sheegay in kilomitir kasta oo ciida Panama kamida ay dadka Panama ay leeyihiin marka waxa uu yiri madax banaanideena iyo xurnimadeena ma ahan wax aan ka wada hadli karno arinta lacagta oo Trump ka cabanaya ayuu sidoo kale ka hadlay wuxuu yiri lacagaha laga qaado maraakiibta mid waliba xamuulka uu sido iyo size-ka uu la egyahay iyo miisaanka culus uu sido ayaa lagu qiimeeyaa marka sida darteed waxa uu yiri waxaan ku qiimeynaa yiri maraakiibta lacagta aan ka qaadayno tartanka dhinaca suuqa ka jira hadduu midka caalamiga ah iyo sidoo kalena operational control habsami u socodka kanaalkaasi iyo sidoo kalena waxa uu yiri waxa baahida markaasi loo baahan yahay in dayactir uu u baahan yahay kana waayo meel shaqeynaysa haday tahay waxba ka halaabaya dayactir ay u baahan tahay waxa sidoo kale yiri casriyeynta biyahaasi intaas markab sanad kasta ay maraan ayaa lagu saleeyaa marka lacagtu wuxuu yiri lacag anagu kaliya aan qaadana ma ahan dib ayaa isaga loo galiyaa dib casriyeyntiisa maintenance joogteyntiisa inuu shaqeeyo waxyaabahaasi oo dil marka wuxuu yiri xajabaadaasi ma ahan mid aanu dul qaadan karno
marka ninkii Trump ahaa howshaasi ayuu hadda keenay wadamo madax bannaan inuu yiraahdo dhulkooda waa inay gacanteena mar kale ay dib ugu soo celiyaan. marka kanaalka Panama waa sidaasi qaabka uu markii loo dhisay waqtiga ku baxay dadka ku dhintay Mareykanka shaqaalihii ka shaqeynaya 5600 ku dhintay waa sida hadda aad arkaysaan. Faransiiska 22,000 uga dhimatay. marka Faransiiska ayaaba badan. Faransiisku ma yiraahdaan inkastoo ay ku guuldareysteen inay dhisaan oo Mareykanka shirkadii ka socotay ay ku guuleysatay, Faransiisku ma dhahayaan anaga dad badan nooga dhinteen anaga gacanteena hala soo geliyo. Arrinta Greenland oo Trump uu xilligii oo madaxweynaha hore oo ahayna uu isku dayay inuu iibsado, haddana uu leeyahay dib ayaanu la wareegaynaa, iyadana waan ka soo hadlayaa. iyo waliba wadanka Canada oo haddana mar kale Trump ku jeesjeesaya, iyadana waan ka soo hadli doonaa haddii la yiraahdo. wadanka Panama waa wadan iska yar oo ku yaala bartamaha Latin America. shacabkiisu waxay leeyihiin ilaa iyo 4 milyan iyo 400 kun, xitaa 5 milyan ma dhama. marka waa wadan aad u yar. wadanka Trump haddii uu hanjabayo uu leeyahay kanaalkaasi anaga iskale ee nagu soo wareejiya. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.